bismillaahi raxmaani raxiim. halkaa iga daawanaysaan waa talooyinka shacabka soomaaliyeed kusoo dhawaada adduunka meel kastoo ku nooshihiin. waxaan rabnaa maanta inaan ka hadalno qadiyadda gobolka Banaadir. dowladdii 60kii iyo waqtigii gobonimada Soomaaliya qaadatay wuxuu ahaa waddanka 4 meel. 2 meel waxay u tartamayeen madaxtinimada dalka, 2 meel oo kusoo hortana waxay u tartami jireen ra'iisul baarlamaan iyo ra'iisul wasaare u tartami jireen. waa laga soo tagay dowladdii Siyaad Barre oo militariga ahayd ayaa gacanta ku qabatay 30 sano ayay dalka xukumaysa iyadoo gacanta shacabka aynu ku soo celin ayay dowladda dadkii way isbaabi'iyeen, way isgumaadeen. 27 sano ayaan jajabnay. waqtigii 2000 Eldoret waxaa la isugu tegay cahd qabiilada Soomaaliyeed oo dhan ayaa la isugu keenay. waxay ku heshiiyeen federal wax la yiraahdo. iyada oo federal lagu heshiiyey oo gobol kastaba ay ka imaanayaan ma arkin oo aqoon-yahanada baarlamaanka ay ka imaanayaan, waa bedelnay. aqoon-yahanadii ka imaanayeen layskuma haysto. gobolka Banaadir wuxuu leeyahay population badan. dad waxaa ku nool Muqdisho u dayraaya dadka gobolka Banaadir. dadkaas waxay leeyihiin aqoon-yahano badan, waxay leeyihiin dad xadaari badan. iyadoo saas tahay, haddii aada gobolka Banaadir aada ku dhalatay asi aad Soomaali tahay, asi halka sheegahayo ma arkin oo gobolka Banaadir xuquuqdiisa diidayo, ninka askariga ee ka yimid Puntland amba ka yimid Hargeysa amba ka yimid Galmudug amba ka yimid Koonfur Galbeed amba ka yimid Jubbaland, cunugiisa magaalada Muqdisho hadduu ku dhasho gobolka Banaadir xilka ma qaban karo. taas qofka yeeli maayo. halka u dhashay gobolka Banaadir amba ku dhashana hadda ayaa loo diidan yahay in uu wax ka qabto martaba uunan gaari karin. taasna ma qabata populationka ku nool gobolka Banaadir iyo dadka Muqdishaawiga ma qaban karto. arrin qaban kartana maahan. qodobka dastuurka qodobka 9 waxaan ka filaynay in lagu daro isbuuc wax 9 maalmood 9 maalin wax gaaraya ayaa madaxtooyada fila Soomaaliya lagama hadlin gobolka Banaadir, laakiin waxaa laga hadlay sida awoodda khayraadka loo qaybsanayo. waxaa laga hadlay sida awoodaha dalka iyo maamul goboleedyaasha iyo gobolada awoodaha sida ay u kala qaado lahaayeen, sida dalka nabad loogu soo celi lahay. aniga gobolka Banaadir haddaan ahay sanatarada aniga qof iguma jirto. xildhibaanada waxaa laga dhigay faraku-tiris. ninka gobolka Banaadir ka soo jeeday ayaa gobolka Bay intuu tagay oo xildhibaan inta soo noqdo magaalada Muqdisho uu fadhiyaa. halkii magaalada Muqdisho ku dhashana Garowe ayuu ka naqayay xildhibaan. dadkaas ayuu u doodaa wuxuuna yimid magaalada Muqdisho, asagana magaalada Muqdisho ayuu ku dhashay. halka gobolada waqooyiga ee Somaliland degan wuxuu ku dhashay magaalada Muqdisho, waxaana la siiyey xildhibaan aanan dadkii deegaanka aqoonin, aanan qofka aqoonin, dadkii aanan ma arkin oo Puntland aanan xabad ka aqoonin, shacabkeedina aan waxba ka aqoonin, kii Hirshabeelle aanan Hirshabeelle oo weligiis ku dhaqmin oona weligiis waxba uunan ka aqoonin, Koonfur Galbeed oonan wax ka aqoonin. ileen magaalada Muqdisho ku dhashay, waxba kama yaqaan dadkaas dhaqankooda. maxay noqota marka nin kasta inuu xilkii uu hayay oo Jubbaland ahayd usoo magaalada Muqdisho ku dhashay inuu xilkiisa uu nooy.
ayuu u difaacayay Jubbaland marka waxaa dhuma qadiyadii gobolka Banaadir iyo gobol ahaan iyo capital ahaan iyo caasimad ahaan iyo dadkii populationka siyaasi ku jiro aqoonyahan ku jiro nooc walba ku jiro nin hal abuurka ku jiro wax walba ku jiro booliska ahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo dhan ayaa la xaqay taasne haddii aan maanta naqano Afrika dadka ugu quwadda badan ugu magaca dheer adduunka cid ka daba hadli karin haddaan naqano asi oo dadka gobolka Banaadir ama dadka Muqdishaawiga ay ka xun yihiin waxaan u arkaa guri aanan si fiican micnaha idibada loogu aasay taas waxaan ilaah inay dowladda Soomaaliya ay ka foojignaato maanta walaxa la sixi karaa laakiin maalin aawna wax la sixi karin ayaa la gaari doonaa waxaan ka tanasuli doonin qadiyadda gobolka Banaadir haddaad igu nici lahayd igu nac waxaan aaminsanahay inay Soomaaliya ay nabad noqoto waxaan aaminsanahay inay adduunka aan wax la qaybsano laakiin aniga meesha aan siyaasadda ka soo geli lahay amba aan xaqiiqo ku dhacsan lahay amba aan dadkayga ku matali lahay amba dadkayga waxay u baahan yihiin meesha aan aga hadli lahayna kama hadli kartidaadii sababta ii diidaysa inaan qora qaato aan la dagaalamo dadkaas diidaya gobolka Banaadir ciddi iga celi karta in lay sheegaan rabaa assalaamu calaykum sheekadan way xiiso badan tahay waxaan u sheegayaa aan baaq u dirayaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ka soo jeeda gobolka Banaadir gobolka Banaadir xuquuq laguma ogolo wax lagu ogolyahay male siyaasigaadi waa la xaqiray aqoonyahankaadi waa la xaqiray dadkaadi waxay u baahan yihiin waa la xaqiray populationkaadina waa la xaqiray ku noolay gobolka Banaadir indhahaada fur sababta aan u leeyahay igama maro qadiyad Soomaaliyeed aad ayay ugu dheer tahay laakiin ka yeeli maayo waxaa la yidhi diriskaada xaar hadduu qabo qab maamul goboleedyada waxay qabaan inay gobolka Banaadir qabta ayaan taas ugu gol leeyahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.